waxaa 30 sano laga joogaa markii ay burburtay dowladii dhexe ee Soomaaliya taasoo horseed dagaal sokeeye Howlgalkii dalkaasi sanado badan xaalad bini'aadantinimo ka dhalatay dagaaladii sokeeye ayaa keenay in dalal badan oo caalamka ay ku dhawaaqaan howlgalkii loogu magac daray howlgalka nabad ilaalinta qaramada midoobay taasoo keentay in ciidamada howlgalka qaramada midoobay loo diro Soomaaliya in ka badan 20 askari oo ka tirsanaa howlgalka qaramada midoobay ayaa lagu dilay Muqdisho taasoo keentay in golaha ammaanka ee qaramada midoobay ay amraan in loo soo xiro Generaal Caydiid maadaama lagu eedeeyay in isaga uu ka dambeeyay dilka ciidamada qaramada midoobay amar golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa dhaliyay in ciidamada Mareykanka ay Muqdisho ka fuliyaan howlgal loogu doonayay in lagu soo qabto Generaal Caydiid taasoo keentay in Muqdisho ay la dagaalamaan jabhadii USC iyo ciidamada Rangers ee Mareykanka Chief Struecker oo generaal hore oo Mareykan oo howlgab ah balse hore uga tirsanaan jiray ciidamada Mareykanka ee sida gaarka u tababaran ee Rangers ayaa waraysi u bixiyay waxa uu kaga sheekeeyay howlgalkii qayb ka ahaa ee Mareykanku uu ka fuliyay Somaliya sanadkii 1993 Chief oo inta aan howlgalka rajo soo celinta loo dirin ku sugnaa gudaha dalka Mareykanka horeyna uga soo dagaalamay dalal ay ka mid yihiin Kuwait Panama, Iraq iyo Afghanistan ayaa waxa uu sheegay in ujeedkii Soomaaliya loo geeyay ay ahayd sidii ay gacanta ugu soo dhigi lahaayeen Generaal Maxamed Faarax Caydiid waxa uuna ka sheekiyay wixii dhacay horaantii bishii Oktoobar ee sanadkii 1993 anigii guutadii aan ka tirsanaa waxaana loo diray howlgalkii toddobaadkii oo kii ugu dambeeyay ujeedkiisuna ah sidii aan gacanta ugu soo dhigi lahayn Generaal Caydiid waana xilligaas marka ay dhacday diyaaradii Black Hawk ee ciidamada Mareykanka ayuu yiri Generaal Chief oo ka sheekeynayay wixii dhacay xilligaas isagoo la hadlayay xarunta American Veterans Center Chief wuxuu sheegay in cabsidii iyo argagixii uu kala kulmay howlgalkii lagu soo qabanayay Caydiid uu ahaa mid uurku taala ku noqotay weligiina aanu hilmaami doonin Chief oo guursaday dhowr sano ka hor inta aan howlgalka loo dirin ayaa sheegay in uu aaminay in aanu dib dambe u arki doonin xaaskiisa iyo cunuga ay caloosha ugu siday marka la eego xaaladii uu xilligaas ku sugnaa maadaama uu hogaaminayay howlgalka wuxuu intaasi raaciyay Saskii aan ka qaaday howlgalkaas uu weli maskaxdayda ka guuxayo waxaanu aadnay suuqa Bakaara oo halka ay ku sugnaayeen Caydiid iyo saraakiil kale oo la socotay markii halkaas aanu dhaqaaqnay ayaa wadooyinka Muqdisho waxaan kala kulanay waxaanan maleysanay qaar badan oo kamid ah ciidamada ila socotay ee saarnaa baabuurta gaashaaman waa ay dhinteen kuwa kalena waa ay dhaawacmeen kadib markii dhexda la inoo galay ayuu raaciyay dhowr daqiiqo kadib taliyihii hogaaminayay ciidamada ayuu sheegay inuu la soo hadlay kuna amray in ay dib ugu soo laabtaan magaalada waxaana bilaabmay in aan ducaysto maadaama aan yaqiinsaday in aan dhimanayo howlgalkii rajo soo celinta ayaa mid ay hogaaminayeen ciidamada Mareykanka iyo xulafadiisa ujeedkiisuna howlgalka xilligaasi lagu sheegay in lagu difaaciyo qaramada midoobay iyo sidii loo dejin lahaa colaadda Soomaaliya gargaarna loo gaarsiin lahaa dad badan oo xilligaasi baahi u dhimanayay kuna sugnaa koonfurta Soomaaliya xilligaasi qaramada midoobay sheegtay in tallaabo walba ay qaadi karaan si gargaar loo gaarsiiyo dadka Soomaaliyeed ee dhibaatada ku hayso halkaasi